dowladda Sacuudiga oo mar kale madfac aanu filanaynin Netanyahu la dhacday qadarna waa ku taageertay Masar warkeeda iska badaa waa mid maanta qulubta Yuhuudda saa u gilgilayso saddexdaas wadan oo iswada raacay maxaa ka sugay muuqaalku kii hore waa ka duwan yahay ha ilaabin inaad muuqaalka noo share gareyso like-ta aan ugu badisay soo dhaw assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ay ka joogtaan oo walaalkiin Cabdullaahi Macali Xuseen waan rajaynayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu mar kale dib inoo kulansiiyay isaga ay mahadaasi oo idilay u sugnaatay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak nabigeena Caleey Salaatu Wasalaam ku wada salino dadka Soomaaliyeed walaalada aan awoodin Afrika iyo saxuurta walaalayaal inteena rabbigeen wuxuu dhiibay aan la garab istaagno dadkaas aan afurino saxuurino walaad baa u mahadsantihiin maanta warku isma saarna bariga dhexe waxa ka dhacay wax sahlan ma ahay soo dhawaada bishaarada maanta aan ku hayo waxa waaye haddaad ka cabanayso baabasiirta caga ololka jilba xanuunka kor cuncunka ku darso waliba kor ololka calool istaaga kolestaroolka dhiikar sokor harmoniskaaga oo isbedbedela ilaah baa bixiyay haddii dhanka awlaadda aad ka cabanaysana manager Sacdi Xirsi waxay ku haysaa daawooyin dabiici ah oo ugu xamadaada dib ugu soo kobcinaya dhanka raganimada sidoo kale manager Sacdi Xirsi waxay ku haysaa daawooyin dabiici ah oo raganimadaada ku kobcinaysa ku sii darso manager Sacdi Xirsi waxay ku sameysay qiimo dhimis aad u ballaaran oo boqolkiiba 30 ah oo runtii aad iyo aad ku raaligelin doonta sidoo kale waxay ka caawin doontaa adigoo gurigaaga joogo caruurtaada dhex jooga reerkaaga dhex joogo inaad gurigaaga ku dhex ganacsato dhanka online-ka ah waliba waxay kugu bari doontaa si bilaash ah sidoo kale waxay kula dhisi doontaa group aad ka wada shaqaysataan haddii miisaankaaga uu culus yahay manager Sacdi Xirsi waxay ku siin doontaa daawooyin dabiici ah oo miisaankaada isaga dhimi doonto dadka waayeelada iyo caruurta yaryar ee nafaqadarrada la ildarana waxay siin doontaa daawooyin dabiici ah oo nafaqadooda dib ugu soo celiso waa barwaaqi bashbash telefoon lambarkeedu halkaas ayuu kaaga muuqdaa waa rajaynayaa inaad soo wici doonto linkiga aad kala xiriiri doontona muuqaalkan aad daawanayso commentigiisa ugu horeeya ayaan kugu soo dhajinnay ku dhufo oo halkaa kala xiriir aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad walaalayaal sida hordhaca barnaamijkayga baa ku soo aragteen Sacuudiga sidii loo doortay Donald Trump oo loo yiri 1 trilyan oo lacagta Mareykanka ah waa in sanduulle ugu maalgashataa waddanka Mareykanka Sacuudigii barku iska jafay hurdadu ka kacay hurdada Sacuudigii uu iska maryaha weyn jiidayay oo iska aamusnaa oo isdhakinayay wuxuu ogaaday albaabka in lagu soo gargaraacay hadday wadamada carabtu sidan ku aamusnaadaan oo shibtan iska ahaadaan in Sacuudiga albaabka lagu gargaraacayo shaki ma ku jiro shaki kuma jiro waxa la socotaan Netanyahu iyo groupkiisu inay ku dhawaaqeen in ay joojiyeen gabi ahaanba wixii macaawinaad soo galayay marinka Gaza hadday ahaan lahayd dawooyin iyo haddii ay ahaan lahayd cunooyin iyo wax walbaaba in la joojiyay shalay Yahuudi waa ku wada dhawaaqday min kabinetkooda ilaa iyo ra'iisul wasaarahooda dhamaantood walow qaar ka mid ah siyaasiyiinta Yahuudu ay arinta aad uga dayrinayaan laakiin Yahuudkii weynaa waa ku adkeysanaya sida halkan idinkaga muuqato waxaan aad wada arkaysaan waa baabuurtii mucaawinaadka waday oo dhamaantood sida saf ugu jira oo wadooyinkii ay ka gali lahaayeen marinka Gaza ciidamada Yahuudi ay hortaagan yihiin oo gabi ahaanba laga joojiyay bin Ghafiir arinta waxa uu taagan yahay waa meel aan rabay roob ma igu da'ay waa midii aan Netanyahu intaasoo muddo aan ka baryayay in dagaalkaana dib ugu laabto maxay ahayd oo masaacidaadkaana uu joojiyo ayuu lahaa way haddaba arintaas markay dhacday kadib 12 saacadood baa ka soo wareegatay markii uu Netanyahu arintaas uu ku dhawaaqay oo uu yiri musaacidaadkii waa joojinaynaa isla markiiba waxa soo hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar waxayna sheegtay in Masar ay ugu baaqayso beesha caalamka in ay dhabarka u ritaan mas'uuliyadda ka saaran joojinta dhammaan dhaqamada sharci darrada ah iyo waliba ka fogaanshiyaha dhanka bani aadamnimada iyo anshaxaba ka baxsan ee lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah iyo in la cambaareeyo isku dayga lagu doonayo in lagu gaaro hadafyo siyaasadeed oo halis gelinaya nolosha dadka aan waxba galabsan ee ay ku dhaqmayaan maamulka Yahuudu hadalkan Masar ay sheegtay ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ay ku dhawaaqday waxa uu si toos ah u taabtay wadnaha madaxda ugu sareysa ee maamulka Yahuuda waayo Masar haddii meesha ay ka baxdo
yuhuud waa loo yaabaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar baa waxa ay leedahay mas'uuliyad darrada ka baxsan bani aadamnimada taasoo lagu doonayo in lagu gaaro hadaf siyaasadeed ee xadgudubka ku ah nolosha bani aadamka. haddii hadda wax laga qaban waayo hadhow yaan la soo canacalin. waa hadal aad u culus oo gilgishay yuhuuddi inteeda kale. waaye halkaa marka ay taagan tahay buu Sacuudigiina albaabada soo garaacay. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa waxa ay taagan tahay waxaan aad iyo aad u cambaareynaa weliba ku celcelinaynaa dhaqamada anshaxa ka baxsan ee maamulka yuhuudda uu ku bartilmaameedsanayo nolosha bani aadam waxba aan galabsan, taasoo aan ku cambaareynayno go'aanka uu gaaray maamulka gumaystaha. Sacuudiga intaa lagama hen jirin. Sacuudiga heer halkaa u gaaro lagama hen jirin. wuxuu leeyahay waxaan ka soo horjeednaa oon cambaareynayna weliba dushana aan ka saaraynaa go'aanka oo uu gaaray maamulka gumaystaha, taasoo ah in la joojiyo mucaawinaadkii bani aadamnimo ee la gaarsiin lahaa shacabka marinka Gaza. soo waxa garateen maaha halka idin muuqatana waa Rafax. waa Rafax waa halkii baabuurtu ay ka gudbi lahaayeen. baabuurtu sidaasay saf ay u wada taagan yihiin oo meel ay u maraan ay laayihiin. halkaa markay taagan tahay midowga Yurubna wuxuu taageeray Sacuudigii iyo Masar ayuu taageero garab istaagay. midowga Yurub wuxuu leeyahay go'aanka yuhuudda ee hor istaaga gargaarka bani aadamnimo ee Gaza ayaa laga yaabaa in ay keento cawaaqib xumo bani aadamnimo. waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo bilaabo wada xaajoodka wejiga labaad. waxaanan muujinaynaa taageerada xooggan ee aanu u hayno wadamada dhexdhexaadiyaasha ah. waxaan cambaaraynaynaa diidmada Xamaas ee ah inay aqbasho kordhinta wejiga koobaad ee heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza. xabad joojin joogto ah ayaa ka qayb qaadan doonta sii deynta dhammaan lahaystayaasha Israa'iil iyadoo aynu meesha ka maqneen oo la xaqiijinayo dib u dhiska marinka Gaza. macnaha dee shacabkiina meesha aan laga saarin oo shacabkoodu meesha sii joogayaan. labada dhinacba mas'uuliyad baa ka saaran maxay ahayto xabad joojinta marinka Gaza. labada dhinacba mas'uuliyad baa ka saaran. waxaan ku celinaynaa baaqiyadanada ah in si degdeg ah oo weliba badbaado leh oo aan xadidneen ay u helaan shacabka marinka Gaza gargaar bani aadamnimo oo degdeg ah. waxaan sidoo kale ku celinaynaa bay leeyihiin baaqiyadanada ah in aan u ogolaano shaqaalaha gargaarka iyo weliba ururada caalamiga ah in ay si wax ku ool ah oo badbaado leh uga shaqeeyaan marinka Gaza. midowga Yurub waa albaabkaas yaa soo furay marka. midowga Yurub awal saan ma ahaan jirine albaabkan yaa soo furay. lambar 1 albaabkan horta Trump baa isku furay. arrintii Ukraine iyo qaabkii oo la dhaqmay madaxweynaha Ukraine waxay ku furtay runtii albaaba kale ay arrintaas ku furtay. dhawaqan wadamadan reer galbeedka qaarkoodna ay saan ugu dhawaaqayaan oo Sacuudigu markuu soo hadlaba ay u sacbinayaanna maxaa keenay? hadalka Sacuudigu saameyn buu dunida ku leeyahay. horaa idinkugu sheegay Sacuudigan iyo wadankan Imaaraadka waliba haddii lagu kabi lahaa, Imaaraadku waa ku daayay, laakiin haddii lagu kabi lahaa hadaladoodu saameyn bay dunida ka yeelan lahaayeen. degdegan faraha badan ee yuhuudda ay ku soo degdegaysa marinkan Gaza iyo shacabka reer Falastiina wuu gaabsanaan lahaa. arrintan Masar ay ka dhawaajisay Sacuudigana uu ku raacay, midowga Yurubna ay gadaal ka soo riixeen oo ay ku taageereen. yuhuuddii khalkhal bay gelisay marka. hadalladaas markay soo yeereen kadib maxaa dhacay? waxaa dhacay in maanta mas'uuliyiintii ugu sarreysay maamulka yuhuuddu dhammaantood ay rabaan in ay bannaanka ka istaagaan oo eedaas yuhuudkii weynaa ay dusha u saaraan. dusha inay u saaraan bay haddartaan siyaasiyiintii iyo qolihii kaabineetka ee shalay shirka u fadhiyey dhammaantood ay hadda damacsan yihiin oo ay rabaan. maxaa keenay? waxay og yihiin Masar mar haddii ay kacdo waddada ugu horreysa ee yuhuudda laga soo weerari karo ama laga soo geli karo inay tahay maxay? haddaysan ahayn waddada fur. haddaa furi waaydo annagana ballanka waa ka bixinaa. ilaa nin kasta hashuu listuu caanaheeda dhamaa sooma? nin waliba hashuu listuu caanaheeda dhamaa. aday ku taalaabay sheekadii taaganta. marka arrintan Masar khalkhal bay gelisay yuhuudda. weliba Sacuudiga ha ku sii taageero dhaqaalahaan ha la garab istaago. acuudu billah. acuudu billah. waxaasoo dhan Trump buu ilaahay afkiisa ka yeersiyey. wax annaga khayr noo ah oo aan u malayn inay shar noo taajiro moogta. wadamadan carabtu inay nooca u midoobaan Trump afkiisana loogama horreyn. soo marka xaaladdu hadda aad bay u adagtahay. nuxnuxdu ma yara, cabsi fara badan baa jirta.
yahuuddii way isdiyaarinaysaa oo weliba ninkii Netanyahu oo ciidamo fara badan oo kale ayuu codsaday. shacabkii in ciidamo loo qorana way diideen. saraakiil fara badan baa laga yaabaa inay xilkooda ku waayaan. weerarkii Duqeymaha Mareykanka Gaza furunta hore kaga jiray rag badan baa wadada ku soo jira. muuqaalada kale idin kula wadaagayay, laakiin hadda iga sii hooya xal halkaasuu marayay. ducadanada aan la garab istaagno, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu naga aqbalayaa. ifafaaladiina waa u jeednaaye. aad baa u mahadsantihiin. inta aan muuqaaladaas isla gaari doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.